madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta la kulmay golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya taasoo laga hadlay ajendayaal badan madaxweynaha ayaa golaha wasiirada hortooda ka sheegay inay xukuumaddan u taalo la dagaalanka al-shabaab dagaalanka musuqmaasuqa iyo ciribtirka saboolka kulankaasi markii uu soo dhamaaday ayaa waxa saxaafadda la hadlay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo oo sheegay in wax ka bedel lagu sameeyay taliyaashii ciidamada sida taliyaha militariga oo xilka laga qaaday loona magacaabay taliyaha booliska oo xilka laga qaaday oo loo magacaabay taliye cusub taliyaha nabad sugidda qaranka oo isagana laga qaaday oo loo magacaabay taliye cusub iyo waliba gudoomiyaha gobolka Banaadir oo isagana xilka qaadis lagu sameeyay halkaasna loo magacaabay gudoomiye cusub madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in ururka al-shabaab uu ugu baaqayo cidii ka soo goosata in afis loo fidin doono muddo 60 maalmood taasoo uu sheegay in iyadana dowladda federaalka Soomaaliya ay isku diyaarisay la dagaalanka ururka al-shabaab ilaaminaya ummadda Soomaaliyeed guud ahaan in dalku uu ku jiro xaalad dagaal uu ku jiro xaaladdan dagaalka ahna aysan noqon doonin hal dhinac oo kaliya ee dagaalkan uu noqon doono dagaal hadduu Ilaahay yiraahdo xaq ah bacdama aan xaq ku soconno Ilaahay inuu nala jiri doono insha Allah maxaan ku raahdaa amniga ciidamada qalabka sida qof walba oo ka tirsan ciidamada qalabka sida waxaan amar ku siinay inay heegan galaan oo ay qayb ka qaataan nabadeynta runtii magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka ay qayb weyn ka qaataan maantana runtii isbedel baa dhacay oo waxa ay yimid taliyaal cusub haday noqoto xooga ciidamada qalabka sida gaar ahaan xooga taliska maxaan ku raahdaa nabad sugidda iyo booliska iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida oo runtii u heelan inay keenaan ammaanka magaaladan si toos ugu soo celiyaan si noloshii ay normal ugu soo noqoto caruurta iskuul aadaan cid alla cidii adduunka nooga imaanaysa wax noogu darsanaysana aysan marnaba ka walwalin nabadgelyadooda waxaan rabaa inaan baaq aan u diro cafis ah dhalinyarada runtii la waalay oo shabaabka ay maxaan ku raadahaa ay waaleen oo ay khaladka uga sheegeen dalkan waxa uu yahay iyo diinteena maxaan ku raahdaa muqaddaska ah inay noo soo noqdaan oo ay qayb ka noqdaan horumarka dalka waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan dejinaynaa meel waxaan siinaynaa waxbarasho waxaan siinaynaa shaqooyin haddii si khalad wax loogu sheegay dalkan waa dalkoodii annaga waa caruurteenni weeye waxa laga rabaa in aysan dadkooda laynin aysan hantida dadkooda aysan burburin waxaan ugu baaqaynaa muddo 60 casho ah inay cafis aan siinay ay noo yimaadaan dawladdaani waxay sheegtay 3 arrimood oo muhiim ah oo aan ka shaqeynayno oo qayb ka ah la dagaalanka aan ka hadlay hadda waxa weeye nabadiidka inaan la dagaalno shabaabka inaan la dagaalno iyo qof walba oo iyo cid walba iyo urur walba oo runtii ka soo horjeeda qaranimada Soomaaliyeed inaan la dagaalno tan labaad inaan la dagaalno musuqmaasuqa maxaa yeelay musuqmaasuqa iyo shabaabku anagu waxba nooguma kala duwana waa isku nooc midna dadka horu u laaya midna musuqmaasuqna dawladda iyo dadka tartiibu maxaan ku raahdaa u dumiyaa tan saddexaad inaan la dagaalno faqriga dadkeenu waa babacsan yihiin dhalinyaradeenu shaqo la'aan badan yaa jirta oo baahsan waxaan doonaynaa in Soomaaliya ay ku soo noqoto siday ay ahaan jirtay oo ah dhalinyaradu inay si kastaba ahaatee maanta shirkan jaraa'id uu ku dhawaaqay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa noqonaya baaqiisii ugu horeeyay oo uu ku sheego in lala dagaalamayo al-shabaab taasoo wali ay magaalada Muqdisho ka socdaan qaraxyo iyo dilal qorshaysan Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere telefishinka Star TV xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya Muqdisho